abraha wuxuu amray in maroodiyada loo jeeday dhanka maka laakiin maroodiga ugu weynaa ayaa dhaqaaqi waayey markastoo ay maroodiga u jeediyaan dhanka kacbada uu fadhiisanayay haddii loo jeediyey jihooyinka kale uu soconayay si kastoo loo garaacay maroodigu wuu diiday inuu ruqaansado dhanka kacbada alla subxaanahu watacaala wuxuu ciidankii abraha usoo diray shimbiro ka yimid xagga badda mid kastana ay sidato 3 dhagax qofkii ay shimbirtaasi la dhacda dhagaxaha dhaqso ayuu u nafbaxayay ciidankii xabashidana halkaas ayuu ku halaagsamay oo ay shimbirihii ku laayeen kuna duqeeyeen firxadkoodii oo uu ka mid yahay abraha waxay baqo ugu carareen yaman balse jirkiisa ayaa marba qayb go'go'ayay ilaa uu sidaas ku baktiyey abraha sanadkaas waxaa loo bixiyey sanadkii maroodiga waana sanadka uu dhashay rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam 40 sano kadib wuxuu alla subxaanahu watacaala qur-aankiisa kaga warramay sheekadii maroodiga bismillaahi raxmaani raxiim alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil waarsala calayhim tayran abaabiil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول موقتها سيدة إيبا كفل أصحابتي مروديغا ميان إيبا كيالن دغرتودي wax dhumay oo san ku dirin korkooda shimbiro kooxa ah kuna tuuraysa dhagaxyo la kululeeyay markaas Eeba ka yeelay bal la daaqay sidiis